ويه بيبيعوا الشقارة ويه وش الدولة طبا ويه لو جمهوري وصعوا ويه بالكم ما انت النبض ويه بيبيعوا الشقارة ويه وش الدولة طبا ويه لو جمهوري وصعوا ويه قطيعين سماوية وددان وخبد ويا دوركاغ قدوية تنت قود استوية قطيعين سماوية وددان وخبد ويا دوركاغ قدوية تنت قود استوية واضح فيه حلقكم لو كان ما انت شغنا لا رجادو وقالوا ويه لعد سار كرسي ويه واضح فيه حلقكم لو كان ما انت شغنا لا رجادو وقالوا ويه لعد سار كرسي ويه dadkaygo israacaweeye noqdo uriya dirweeye u dirsadaha nasrigu weeye doona qaranki lumay weeye hadaalina codsigu weeye dadkaygo israacaweeye noqdo uriya dirweeye u dirsadaha nasrigu weeye naag maxamed seeraanay waxaa wada nina qabiil oo yuude oo intii adduunay midka u wadiin haddaan ilaahay ka cabsano reehabaasayna tolkayga jiro walaalay oo reehabaasayna war walaal qabri kula ma galaayo qabiil qabri kula ma galaayo waxa qabri kula galaayo waa camalkaada
qabin oo walaalaha u wada siman yihiin oo ficil dartiis ugu soo taga waddankiisa oon baahi asagoon haynin waddanka imaado walaalayaalow maan dhisno cidda ray aabbahay dhagaysta ninkan ilmihiisa ray abtiyaan u nahnay ninku sheegta lagama sheegto hiilii hoo uu nugu leeyahay mise naguma laho ma nagu leeyahay mise naguma laho bishaar maxamed saleemaan waxaan ka imaaday dhajabula ayaa garanay soo lama yaqaano dhajabulaan ka imaaday odayga dhajabulaan aan aniga waxaan u imaadnay ninkan siyaad la yidhaahdo doctor siyaad dhajabulaan kaaga soo kacnay boodha soomaaliya wax ilaa intaasoo kilomitira meesha u jirta intaas waxaan u soo kacnay adiga darta warkaada dhajabula waa la geeyey tolweynaha waa la dhex dhigay si fiicanaa laguu soo dhaweeyey arrintaada waa la qaabilay annagan inaan kuu sheegna u imaadna meesha in adeerkay waaya war yiid haddaan nahnay yiid ragga keli meehee gabdhaha waaye war waxaan ii sheegayaa dad badan baan horay jab iyo naasabeel ugu soo qaadnay walaalayaalow meelo qaateen wiilkan yuudka iyo gabadhiisa the first deputy governor in wajiya first deputy governor in wajiya war jab iyo naasabeel maku jiri karnaa mise kuma jiri karna waa inaan ka baxno soo maaha war waxaan boona gabana waxaan ka codsanayaa hadduu ilaahay ku soo geliya waxaana baryayaa aan ka codsanayaa habaas weyna inay ila qaadaan war meelo qaadeen thank you very much waxaan ii sheegayaa boona gabana wajaar county adelaide wajaar south keliya ma aha arrimo fara badan baan la soo kululnay coronavirus aan la soo kululnay issuega iida project soo baxdaa jirtay projectyaasha iida wax aan anaga kala soconin ma jirin waxaa soo baxday droughtka iida abaaraha iida inkastuu ilaahay u keenay ilaahay baa dadku gargaare gurmad ka soo baxay national government ee jiri county government la keenay county government war ma aragteen laakiin ninka cadaalad samayn doona waa doctor siyaad cabdullaahi iyo hoona dhabidkiisa war haddaad ii nahnay qofka wax noo qaban kara waa labadan anisaan baan ii arkay Honorable Siad, the governor of Wajir County. But the first thing we had requested for was a mortuary. The second thing was a cemetery. The third thing was we wanted some appointment to the CSCCs and the board of directors. Mr. Honorable, you have made a very big stride in your election. So we are assuring you today that all non-locals, 6,000 votes, they are your votes right now. On behalf of all non-locals, those are votes. We wish you well as we transit to 9th of August. We shall vote for you. waxaana ka imaaday meel iyo Buna sub-county ma maqashay Deer North dhalashadaydu waa Buna wajeeraan ku akhristay Wajir Girls former Wajir Girls student aan ahay waxyaalo badan aan waddanka maaragta policy iyo waxyaalahaas aan ku dhex jiray iyo research laakiin inta badan aan suubi waa gabadha ugu horeysay waa gabadha ugu horeysay oo research water quality analysis waxa la dhaho oo Wajir ka qabatay waxaana laga gudbiyay Beijing conference Novan waa gabadha ugu horeysay senatornimada 2017 u tartamay inta badan waxa way senator governor waxa loo yaqaanaa nimanamo laakiin waa open race English soo istaagi karaa tiribkana Dr. Siyaad Cabdullaahi women empowerment waxa la dhaho suubiyay markaas ay soo qaatay wuxuuna igu soo qaatay kartinimadeed inaan shaqada ka soo bixi karo maadaama shaqada hore oo lii dhiibay oo dawladda oo meelaha ka shaqayn jiraan ka soo baxo tanna waxaa way dib ma jirto waxaana yidhi rabaa inaa quraana siisay sigan gaabanaha dadka badi si fiican loogama fahamsiinin waxa la rabo in lagu qabto kursi siyaasi u baahan maaha kursi qof
khibrad leh dadka lagu wado liiskuwana wado liiskuna hayo countigan waa county la wada leeyahay intaasoo cidoo soomaaliyeedaa deggan hadda kuriya xataa soomaalida miihine kii dadka madowgaha ayaa 10 kun ku dhow oo xaq ku leh waa county u baahan qof khibrad leh dadka inuu isugu keeno isku wado u naxariisto xaqooda iska ilaaliyo waxay dawladda ugu soo dhiibtana si fiican ugu shaqeeyo ani waxaan arrin wiil wajeere magaalooyinka badiin waxbaas weyne iyo wajeer ku soo koray jaamacad dibadda u aaday intuu Kenya ka maqnaana maskaxiyan iyo wadnihiisa labadaba dalkiisa aan kala maqnayn dadka way wada ogyihiin inta meelan ceel ka qoday inta masaajidon khayraad ka geystay inta udxiya aan ciidda keenay wax la sheeg maaha waa la wada ogyahay dad badan oo reehawaas weyn way yaqaanaan waxaa kaloo la sheegay gabdhaha inay raabtuutiin maasha Allah marka qaraabaan dhinac walba ka nahay dhinac waad naga dhasheen dhinac ilmeenaad ka dhasheen marka sida Cabdi uu sheegtay afar wiil oo maxamed suur baysaay عندنا الحمد لله مركا قال صورة دلي أنا قال لك بنود بعد رئيس سيد عبد الله حسن وبهجري يا رابطويين مركا الصومالي ارتساس بيصورة نشة وحنا هاي يعني مركي نوع دوما هذا هذا أنت لو وريسته كل رابطي رأوا بيصورة لا سماها هذا الصومالي ما يمكن تتمتته قبل كان هذا فايدة كيني صومالي وحكي كين لا سماها صوماليا هذا المهد الشيء حرق حوتيه كل شيء ayaa ilma sii dhalay marka anaga riikiina haddaan nahay aan ka fiirsana waxaan qabiilka marka horeba abtiin la tacaarafuun baa loo keenay maaha inaan isku qolo isku kala saarno maaha inaan isku takoorno maaha inaan isku waxyaalo maalaha yacni ah dadkeenan duweynaha kale la soo dhaqmay waxaan kaga duwannahay maba kala saarno meel waxaan ka nimaana annaga soomaalilaba wada dhihi marka maba sii kala saarnaba dadka markaad sii fiirisid ani hadda wiilasheeda waxaa raabtuya isaaq سعد موسى قبل waxaa rabtay bahgari marka wiilasheedu waxaa dhalay maxamed suwer saas baa horta la soo wada dhalay cidaan cid kale ka dhalan ama aan guri isugu imaan ama aan wada degin ama aan wax isku darsan ma jirto horta taas waa taas midda kale aan kursigan u taaganahay feeri sanad iyo MCA iyo women rep kuma mashquulin waxaan ugu mashquulin idinka doorta qofta rabtaan ama ismacii faqla somaa عد والله MCA لو تاجن قف كرتان ولده لكن كرسي جابناها سف عنها لو غفير سنة قالوا كهر مرة وعذر كسان المدحوينا أمركم شغلك يسبح هواي press conference جابيني أودي I am resigning وأنت تنزوي مدحوينا دي دويناكل شغلي واقف يسبح هواي أما الدولة دي ويجها الله ده لقى ما كره يكون كره نوصل وتر حلا دافان إسكالافة وقت قولي تدا مستر متك وصل هذا الرمان سواها marka horta waxaa ka ogolaanina waxaan kala saari doon waa idinka kurihiina taariikh 9 bisha 8 anigoo Siyaad Cabdullaahi ah oo wiilkiini ah oo ogaadeen idagoodiya iyo Juuraan iyo Garay iyo Gari ay kala ahayn Gari Kombe Gari Maxamed Suwer Maqaabul kulli waa dadkaygi hal cid oo la soo korin ma jirto hal cid oo aan la soo korin reecer ma jirto hal cid oo qaaraan siinin ama aan qof guursan aan guurkiisa ka qayb galin ama aan la dirsin ama aan wax isku darsan ma jirto reewajeera ciidaha way wada yaqaanaan waxaana rin wajeer rasmi ah waxaan aaminsanahay inaan kala takooraynin Soomaali wallahi alcadiim inaan kala takooraynin weligeeda aan qabiil kala takooraynin weligeeda aan qabiilin kala geynaynin waxaan rabaa inaad safartan ka fiirsataan kursiga gabanaha taladan iyo ra'yigeygana meel dheer gaarsiiya waxaan waa 5 sano wax la xisaabay way wax yar waaye hadda 30 maalin baa ka hartay waxaad arki doontaan 2027 oo haddana dhamaatay marka 5 sano kuna sibsada laba qof oo cusub oo fikrad cusub oo maskax furan oo 20 sano dal hormartay wax ka soo dhisay dawladda Mareykanka wax ka soo dhisay Barack Obama electionkiisa wax ka soo dhisay Hillary Clinton oo kursiga sigta wax ka soo dhistay dhalinyaro yar magacayga Google gareeya iga fiiriya social media wada arkaysa waxaan soo qabtay waxaas baan rabaa inaan wajeer ka qabto lacagta wajeer la siiyo waa lacagan maskax galayn 10 bilyan baa sanadkii la siiyaa si fiican dhageysta 10 bilyan
oo 10 sano lagu dhuftay waa 100 bilyan ayagii baa barsadaha hadda ka sheegi qaarkood intay aad marka waa su'aale xagee tahay aad habaas weynaasaan u eg shanta abaqasaas u eg ganyuure basaas u eg bus cumar digilay ilaa tarbad meel walba ayaa biyalaan abaartii la soo dhaafay hadda nin oday hadlay wuxuu yiri abaartii ilaaha keena Soomaa waa run laakiin ka hortag baa leedahay taxadir baa leedahay ilaahay wuxuu maskax noo siiyey inaan maskaxdeena ka shaqaysino Soomaa inkastoo dad muslimiina abaarta xoolihii looga hortagi lahaa waana la siiyey 10 bilyan bay dowladda Kenya la siisay awal hore waxaan eegi jirnay PC iyo DC makaambi jalwaan loo soo diri jiray dadkeena hore dowladda ogaa dadka soo naxasuuqi jireen askar bay noo soo dirsan jireen shiftaatiin baan u dhigi jiray 10 sano la soo dhaafay dad walaalahan baa xoolo lagu soo dhiibay dadkii ayaga ayaa dowladda haleeyay dadkii ayaga ahaa shaqadoodii kama soo bixin aniga waxaan inka codsanayaa reehabaas weynay hiiliya anigana waan hiilin waa balan hiiliya waliba gabdhaha iyo dhalinyarada dowladtayda in kaga fiicnaan doonto ma jirto been yaan lii sheegin